Professor Samatar iyo arintu ka hadlay maxad ku ogtay waxa weeyaan tilmaam haddaan ku siiyo wasiirka amuraha dibadda imika jooga wax allaaliyo wax uu ka og yahay فأمور الدبادات هي تاريخ أمور الدبادات ما جرتو مالين دوين حمر بوكو قبطي أو جرايد كله هذا دوان يابي وحكو بله فرنسا لوجه الله وحوي أقونيهم وإنات صدق أقونيهم كوانا وهذا شيء مكت وهذا واحد دبلوماسي كو هذا ماها تاريخ إثيوبيا ما يقانو تاريخ أمريكا كما يقانو كيورو ما يقانو الدبلوماسي وحنا كما يقانو لكن ده حسب هو هذا يقانو وتسوى تكوبات طلبات سفير أي الله سمع عابي مريكا سفارة مريكا هي واشنطن جوبتا وحوين سفارة ينوغو مهم سنة دونك وسفارة أدونك نوغو مهم سنة إلا واكسو توكسانا موكت عالان كان واكسو توكسانا ويل كان داقتر جوية وحن ملايا ويل دارادو إنو يهي حكم الميديا بولي يهي وحوي وحبا كدنبيا وانيشي يقدونا حويان إلا كانوا قوف مركاسي فرسمدي سؤال وسريسو أقوانيد الدبلوماسية أما تعليمات إنay dadka ka hooseeya counselors-ku dad dhisan yihiin ilaa waxaan doonaynaa Mareykan inaan qarcino inuu waxaynu doonayno inagala shaqeeyo Mareykan inaan qarcino dad aqoonteeda lehna waa loo baahan yahay I agree with that in loo baahan yahay dad aqoonteeda leh la helo laakiin imisa sana ayaad meesha fadhiday maxaad adiga wax u qaban weyday isaga kaliya raba inuu fadhiisto moogta cid kale waxa ma ogola dhalinyarta yarada dambe ee wax bedeli kara ee aqoonti ka sareyso ma rabaan xitaa inay soo galaan meesha moogta inuu isaga si hor fadhiyo rabaa moogta wuxuu ka xanaaqsan yahay kursigiiba waayay ilaa muu hadli jirin bariga hore moogta qofka Soomaaliga ah kursiga markuu waayo halkaana uu waayo waa dagaalamaya yaa u dowladeynaysan ninka imika la soo magacaabay ee la soo ogolaaday waa nin dhalinyara oo sidiisa kala quman laakiinse amuur dibadeed weligii kama shaqeyn daraasad kuma samayn cid ka hooseyso Washington joogto consulars iyo wax la mid ah oo la adeegta mag oo isagana jihaysa ma jirto marka waxaad arkaysaa saaxiibkaagii halkan walaalka halkan gee abtiga halkan gee ayay dowladnimadii noqotay markaas ayaan darrada weligeedba Soomaali saas way sameyn jirtay cadaalad wadanka kuma dhisna moogta bigo sharciina kuma dhisna ninkii madaxweyne ah wuxuu doono meesha ka sameynaya iyagana raali bay ka yihiin inta walka fadhiyana dad gulwadayaal ayaa u fadhiya oranaya ninka in adeerkay ah kuraasidu ka qaadanaya barasaabkii baa dhacaya madaxweynihii baa dhacaya ra'iisul wasaarihi baa dhacaya sheekhi baa dhacaya isaga xitaa waa ku jira aqoonyahankii baa dhacaya aqalka dadka inay kordhiyaan ma rabaan waa tuugo isku wada timid hadhow marka kursigooda waayaan bay qaylinayaan ilaa wax kala ma hayaan moogta waa inay qayliyaan waa ogna waxa weeye inaan Ethiopia amuraha dibadda la iska celin karin ilaa la keeno dadkii jagooyinka oo qalbi lahaa walaal taasi waa ta koobaad laakiin dad badan waxay qabaan inuu yahay nin aqoon-yahan ah jaamacadda Simat in muddo gacanta ku hay fahamsan siyaasadda arrimaha dibadda adigu aqoon intee leeyahay oo leedahay safiirka la soo magacaabay ana waxaan arkay CV-giisa arkay walaal si aqoon kale qofka u mali waxa la ii sheegay dadku waxay dhahaan waa nin edeb badan oo afkaaban weeyaan nin edeb badan oo afkaaban waa qaban fiiri aqliyaadka dadka uga ciyaaraya niyow dhibaatada jirta waxa weeye aqliyaadka baa la isaga ciyaaraya in afkaaban oo edeb badan weey wax qabad baa loo baahayay ba anaga ba waxaan u dhiibanaynaa ya aduu afgaaban yahay maba oginba waxa ka soo yeerayo qof af dheer baro bahana ku socdo oo jaamacadana ka shaqeynaya jaamacadaheennana waad ogtahay oo jaamacada heer caalami ah runtii maaha marka nu isku sheegno marka maamulka jaamacad taalla Muqdisho taalla runta marka la sheego safaarad qof maamulaya oo adduunka khibrad ku leh bal tilmaam ku siiyo ninka safiirka jooga Djibouti u jooga Washington iyo New York qof quraas waa safaaradaasi Geneva ka soo shaqeeyay daraasadu soo foreign affairs buu soo bartay
markuu wuxuu qorayo iyo siduu u hadlayo waad garanaysaa inuu fahamsan yahay dadka kale sida loola dhaqmo sida amuurahaaga loo gashado taariikhdooda uu og yahay si u beer la xawsado soomaad si u beer la xawsado taana waa ku raacsana laakiin weligii kama hadli jirin mugti hadduu ka hadlaya hadda maxaa keenay kursigii inuu waayay fiqi baa ku fadhiya fiqiyaa laga qashqashaaday waqtigiisii baa la soo gaaray uu lacagta cuni lahaa ninkan wax kaloo xumaana kama sheegi karo soomaad garan laakiin si amuura dibadeed alufba ayay u taallaa ta labaadna waxa weeyaan amuuraha dibadda haddaynu ka hadlano maanta dhibta inoogu weynayn haysataa waa arrintan Ethiopia waaye arrintan Ethiopiana waxay u baahan tahay laba si farsamay u baahan tahay farsamo gude iyo farsamo dibadeed waxa weeyaan tilmaam haddaan ku siiyo wasiirka amuuraha dibadda been bay isugu sheegayaan mugti ninkan waxa wareysanaya waxa weeye idaacad ay daarood ku leeyihiin baa wareysanaya Mareykanka oo dhanna ma garanaysaa waxba Soomaaliya lagu soo qorayaa mugti calanka yaraaba gadaal la keenayaa waa brainwash waxyaalahan oo kale waa brainwash marka waxa la keenaa intooda badan community-yada waan aadaa mugti I think 70% waa daarood marka dadka xitaa presentation ka sameynaya 70% waa daarood ya keenaan muscad oo VOA u shaqeeyo haba gidira nimcaan hilaac tusmo yaa la keenayo kale hay oo hadda dee wadanka yimid oo la keeno isagana meelaha lagu buuxinaya jareer weyn lama arko raxan weyn lama arko kaaba oo gabadha haddana laga guursaday farxiyo cabsiyo xitaa lama keeno waqti marka waxa weeye 70% kale waxa weeye markaas waxa looga sheekeynayaa kacaankii history kacaanka uu sameeyay beenta ahaa ay bugti ahaa waxaas laga sheekaystaa wax ay Soomaaliyeed ma Soomaali bal meesha lagu soo qorayaa calanka Soomaaliland la keen maayo KDDS lama keenayo North Eastern Province lama keenayo Djibouti lama keenayo Soomaalida waxa weeye waa qoomiyad ma garad meel ma wada degnay waxa weeye wadamay kala leedahay waa in marka daacadad Soomaali ku soo qorato waa in dadka dhan ay ka wada mid yihiin marka ninkani waxa weeye aniga hadalka kama sanaysto ma garad reerka daarood uu shaqeynaya maskiin yar halkaas la soo fadhiisay langab ciilan weeye oo qaylinaya reerku u qaylinaya uu og yahay isaga kursigaas uu buu rabaa Samaroon waxa uu maayo kursigiisaas markuu waayo wax xanaaqaya isaga walaalkii waa aqoon-yahano lagu fashilmay wayna fashilmay aqoon-yahanada Soomaalidu dhan way fashilmeen wax ma sheegaan because waxay rabaan inay wax cunaan sidii caadada ahayd halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa annaga noo dawladeyn meysaan sidii caadada ahayd assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh